السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد تقاليga soo dhawaada meel kastoo adduunka ka joogtiin. waxaa idin leeyahay farxad kuwaara. kusoo dhawow gacmo furan, kusoo dhawow janalka. haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay, insha allah waxaa rajeynayaa inaad subscribe saarto, like saarto, siina share garayso. asxaabta qaaliga aan jeclahay, maanta maxaan rabaa inaan idinla wadaago sidaa arkaysaanbo alaab yar oo nafaqo ah oo maxaa la dhahay gurigaaga ku yaalo ama suuqa kugu dhow aad ka heli kartid. karooto waan isticmaalnaa maalin walbo. maxaa la dhahay mooskana sidoo kaleeto maalin walba la isticmaalaa oo waa lagu qadeeyaa, dadaaba ku quraacdabo. marka adiga insha allah isku soo duubo, waxa waaye suuqa kugu dhowna waa ka helaysaa. marka alaabtan waa alaab lagu cayilo. maxaa la dhahaa hadaad caato tahay waad ku cayilaysaa, haddii aad nuujinaysidna kaala iska arag. waxaan ku dhahay caano fiican ayuu kuu yeelayaa, aad ayuu kuu anfacayaa. marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysano ama aad ka faa'iidaysataan haddii ilaah idmo. asxaabay, waxaan rabnaa inaan isku soo darsano ama aan soo hoolano. marka ugu horeysa waxaan soo hoolanaynaa karootada. sidaa arkaysaan karootada waa soo dhaqaysaa marka ugu horeysabo. qudaarta horta waxaa wanaagsan in la iska dhaqo, cid walbana way og tahay, laakiin haddana waa isxasuusinaynaa qudaarta in la dhaqaa muhiim ah. marka karootada ayaan soo dhaqanaynaa, waa soo nadiifinaynaa, kadibna waa soo hoolaynaa. adi marka karootada intay ku anfacayso ama inta qof adi aa ku cabaysiin ayay ku xiran tahay. marka 2 xabo karooto hadda qiyaas ahaan ayaan soo qaadanay, 2 xabo karooto waaweyne. kadibna waad dhaqaysaa, waad soo hoolaysaa. markaa soo hoosho waad soo jarjaraysaa, waa soo xogaa, waa soo yaraynaysaa. kadibna 2 xabo moos ayaa soo qaadanaysaa. 2daas xabo mooska waad soo fiiqanay, kadibna makiinada ayaa soo qaadanaysaa. makiinada markaa soo qaadato 2dii xabo mooska ahay oo aad soo fiiqatay iyo 2dii xabo karooto ahay oo aad soo jarjaratay ayaad makiinadii kusoo shubanaysaa. kadibna waxaad kusoo daraysaa ama aad kusoo shubaysaa galaas caane. caanaha inuu kaaga bata lama rabo, ayaad kusoo shubaysaa. kadib waa isku soo shiidaysa, si fiican ayaa usoo shiidaysaa. marka intaas ayuu ku egyahay. adiga haddaa rabto sokoraa ku darsanay, haddaa rabinna sokor kuma darsanaysid, inkastoo sokortu aysan caafimaad ahayn. haddii aadan ka maarminna sokorta waxaad suubinaysaa wax yar aan badnayn ayaad ku darsanaysaa, 1 qaado oo kaleeto. sokorta caafimaad ma ahan insha allah. marka haddii kalena waxaad ku darsanaysaa iyadana sidoo kale baraf ayaad ku darsanaysaa haddii aad barafka ama aad qabow jeceshahay. haddaa qabow jecleenna intaas ayaa ku anfacaysa. caanihii iyo mooskii iyo karootadii oo laysku shiiday waa 3 shay. kadib ama miiro ama sidiisa ku cab, adisaa jeceshahay. marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay, 3daas shay ayaa maanta aan kusoo qaadanaynay barnaamijkeena. marka aan kala qaadno marka 3da shay maxay u fiican yihiin. 3dan shay nafaqo ayaa ka buuxo, fitamiinaadna way ka buuxaan, jirkana aad ayuu ugu wanaagsan yahay. maqaarkaagana way ku qurxinayaan, waadna ku cayilaysaa. oo kaale arag, maxaa la dhahaa haddii aad qof caata aad tahay oo aad cayili weyso, alaabtan way ku anfacaysaa maalintii inaad koob ka hesho. marka insha allah asxaabteyda, horta karootada ayaa rabaa inaan ka hadlo. karootada aad ayay caafimaad ugu tahay jirka, gaar ahaan aragga ayay u wanaagsan tahay. waxaana ka buuxo fitamiin A ayaa ku jira karootadu. waxay qani ku tahay fitamiin A ayay qani ku tahay, cid walbana way og tahay. jirkana aad ayay ugu wanaagsan tahay, fitamiinna ayay siisaa. jirka waxay ka saartaa sunta ayay kaa saaraysaa. marka haddii aad joogtayso caafimaad fiican ayaad ka helaysaa. caafimaadkan ilaah ayaa bixiyo, laakiin aad ayuu ugu wanaagsan yahay. waxaa kaleeto difaaca jirkana wuu u wanaagsan yahay. karootada waxaa ku jiro fitamiin A. dheefshiidkana wuu wanaajiyaa karootada. marka waxaan usoo gudbaynaa mooska iyo faa'iidada uu leeyahay. marka karootada aan u noqdo
karootada indhaha aad ayay ugu wanaagsan tahay. Qofka haddii araggiisa daciif uu yahay oo kaleeto aad ayay ugu wanaagsan tahay inaa isticmaasho. Maalin walba karootada waxaa xilliyo waxaa jirto aad ay usoo raqiis ay u tahay ay usoo jabta ayaa jirto. Calaashaan suuqyada ay yaalaan iyo xilliyo ay ku yar tahay. Marka karootada waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatiin haddii ilaahay idmo, maqaarkaagana wuu kuu qurxinayaa. Marka waxaan usoo gudbayaa mooska iyo faa'iidada uu noo leeyahay ama caafimaad ahaan jirkeena. Mooska waxaa ku jira fitamiino asagane sidoo kaleeto. Fitamiinadaas waxaa ka mid ah fitamiin B6 ayaa ku jiro, fitamiin C ayaa laga helaa, macdan ayaa ku jirto, magnesium ayaa ku jiro, borotiin ayuu leeyahay, dufanna wuu leeyahay mooska. Mooska wuxuu xoojiyaa lafaha uu u wanaagsan yahay, wuxuu xoojiyaa lafaha mooska, wuxuuna fududeeyaa nuugista calciumka ayuu fududeeyaa. Marka waxaa kaleeto oo laga helaa energy ayaa laga helaa, qofka energy ayuu siiyaa. Marka waxaana ku jirto sokor dabiici ayaa ku jirto mooska. Saa idin sheegay potassium iyo macdan ayaa ku jiro. Marka mooskana aad ayuu u wanaagsan yahay inaa aad maxaa la dhahay ka subsato cabitaan. Marka lagu daro karootadana waad ogtihiin karootada iyadana saa idin sheegay waxaa ka buuxo fitamiin A, kana fitamiin C iyo fitamiin B6 ayaa ku jiro. Marka miisaanka calaashaan wuxuu miisaamaa mooska dheecaanada jirka ku jira hormooniska ayuu miisaamaa. Marka halkaas waxaa uga baxeenaa mooskii faa'iidada uu noo leeyahay. Marka mooskii oo fitamiin ku jiro oo maxaa la waxyaabo badanna aad ka helaysid, potassium uu ku jiro iyo fitamiino fara badanna ay ku jiraan saa idin soo sheegay fiidiyowga dhexdiisa. Iyo maxaa la dhahay karootadiyo caan ku ah fitamiin A kaale iska arag. Marka caanihii oo lagu daray, caanaha iyadana waxaa laga helaa fitamiin D ayaa ku jiro oo caanaha fitamiin D ayuu qani ku yahay. Marka asxaabteeda qaaliga aan jeclahay aad u mahadsantihiin. Isku soo duubo waa 3 shay aan kala dhicin oo aad muhiim u ah jirkana caafimaad uu ku helayo, adigana haddii aad caata tahay aad ku cayilaysid. Marka insha Allah asxaabteeda qaaliga aad u mahadsantihiin. Maka daali doono inaa idin dhaho waa mahadsantihiin. soo dhawaadaya aad leeyahay. Marka koowaad ilaah ayaa mahad iska leh. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa u mahad celinaynaa. ilaah ayaa halkaa isku ay keenay. Marka labaadne idinka ayaa mahad iska leh. aada u mahadsantihiin. Like-ta iga iloobin asxaabta qaaliga, like-ta isaara. aadaan u mahadsantihiin. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago cabitaankan. dhowr jeer ayaa la isoo weydiiyey oo la dhahay maxaan ku cayili karnaa. Marka waxaa jiro waxyaabo badan oo qofka bini'aadanka uu ku cayili karo oo fara badan ayaa jiro. Marka insha Allah waa idin soo gudbi doonaa haddii ilaahay idmo. Laakiin labadan aad ayay muhiim u tahay. Laba yaana dhihin waa 3, waa mooskii, waa karootadii, waa maxaa la dhahay caanihii. 3dan shay aad ayuu jirka bini'aadanka muhiim ugu yahay. waana 3 shay oo iska basiido oo cid walbana ay heli karto. Marka insha Allah waa rajeynayaa inaad ka faa'iidiin haddii ilaahay idmo. caruurtana aad ayay ugu wanaagsan tahay haddaa inta u shiido aad maxaa la dhahaye aad siiso. aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Marka adiga marka haddaad doontid sokor ku darso alaabtan, haddii aadan ku darsanin kasii wanaagsan oo waxay aad u wanaagsan tahay inaadan sokor ku darsanin. Sokorta sideedaba caafimaad ma ahan, dadkane laguma dhiirigeliyo. Laakiin haddii aadan ka maarmeynin hal qaado ka badan ha isiga darin. Markaad 2 xabo karooto waaweyne iyo 2 xabo moose iyo koob caana isku soo darsato. Marka insha Allah mooska asaga waxaa ka buuxo macaan dabiici aad ayuu uga buuxaa. Maba u baahan doontid inaad ku darsato wax sokor ma u baahnaan doontid, sababtoo ah 2 xabo oo mooska ah ayaa waxaa ka buuxo sokor dabiici ah oo Ilaahay ku abuuray ayaa ka buuxo. Marka asxaabteeda qaaliga aan jeclahay aad u mahadsantihiin. aad maka daali doono inaa idin dhaho waa mahadsantihiin, kama daali doono insha Allah. like-tana ha iloobin fiidiyowga, noona sii share garee waa asxaabtaada kaleeto oo sii share garee saaxiibadaada dadka kugu dhow oo share garee siday uga faa'iidaystaan. Marka asxaabteeda qaaliga waa idinka sii tagayaa. waa anigoo qurux dumar official towa waxaa idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo noqod dambe oo xiisa leh.
fideogan fideoga xigo inta aan ka gaarayno insha allah.